ay in ka badan 20 dukaan oo ay lahayn ganacsato Soomaaliyeed ayaa lagu boobay tuulada Qarabow ee hoos tagta magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika kadib markii ay ka dhaceen rabshado ay dhigayeen shaqaale careysan. dadka rabshadaha dhigaya ayaa cagta mariyay guud ahaan 22 dukaan oo ay lahayn ganacsato Soomaaliyeed waxaana ay qaateen dhammaan alaabihii yaalay dukaamadaasi iyadoo la sheegay inay qaarkood dab qabasiiyeen. booliska tuulada Qarabow oo mar dambe soo gaaray goobaha uu boobku ka dhacay ayaa isku dayay inay badbaadiyaan goobaha kale ee aan boobka gaarin hase yeeshee ay ku guuldareysteen badbaadinta goobaha ganacsi. shaqaalaha dhigay rabshadaha lagu boobay dukaamadaasi Soomaaliyeed ayaa codsanayay in loo kordhiyo mushaaraadka ay qaataan 50% iyadoo shirkadaha ay u shaqaynayeen aysan ilaa iyo haatan ka hadlin codsigooda. haddaba mar aan booqanay tuulada Qarabow aniga iyo koox wariyaal ah ayaa waxa indheenu qabanayeen dukaamo dab la qabasiiyay iyo kuwo kale oo albaabadoodu iskaraacayeen waxaana noo suurta gashay inaan wax ka weydiino ganacsatadii boobka loo geystay dukaamadooda inay nooga warbixiyaan. xaaladda dhan waa isku wayaaday marka dad badan oo bulsho aan ugu soo baxay marka xabad iyo wax walba waa adeegsan helicopter in la soo keenay laga gaaray markii dambe aad hooyisiisaas waxay maalintii jimcada habeenkii sabti aad degatay haddana maanta sinada dib way bilaawday oo soo taaway aniga oo ah magacayga Cabdinuur Sheekh Mukhtaar waxaan ahaa dadka ganacsatada Qarabow ayaan kamid ahaa dadka hantidooda la boobay ayaan ku jiray ana hadda shakhsi ahaan dukaankii wuxuu kamid ahaa dukaamada ugu dambeeyay Qarabow oo la dhaca dib way soo gaaray wadiga wajiga ayaa macnaha garaafa iga soo gaartay wayna nagu istaagan wayna haranteen marka alxamdulillah hadda waan nadanahay kulay isbitaal maanan galan waan fiicanahay magacaygu yahay Cabdirasaaq Maxamed Cali oo kamid ah dadka ka soo qaxay location-ka kana soo baxay kana soo carray dukaantoodii ayagoo naftooda soo baxsaday in badan oo kamid ah walaalahayna lagu dhacay dukaantoodiina la jajabiyay qaarkoodna ayna jirin wali ayna meel u laabtaan ayna jirin ayna ka dambeeynin ganacsadana kamid ah marka dhibaato fara badan noo geystay hantideena la boobay cid wax noo qabatay in dawladda South Africa ma jirto booliska South Africa meesha aan ka soo weynay caawiyaan waxay noo geystaan dhibaato booliska ayaa meeshan South Africa qaasatan Qarabow ayaa waxa ka dhacay mudaaharaadaas oo dadka waddanka ee mudaaharaadayaan kadib markii mudaaharaada ay bilaaween waxayna sii bilaaween inay dhacaan dukaamada foreigner sida Soomaalida intaasoo dukaan ay dhaceen dukaamada way jijibiyeen gaariyaasha way jijibiyeen. dhinaca kale Sheekh Cumar oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape oo gaaray goobaha boobku ka dhacay ee tuulada Qarabow ayaa ka warbixiyay waxa ay indhihiisu qabanayeen isagoo ganacsatada Soomaaliyeed ee tuuladaasi Qarabow ugu baaqay inay markasta feejignaan muujiyaan. horta waxaan soo aragnay in badan oo boob ah dukaamo badan oo la dhacay dukaamo badan oo la fuuqsaday intaas oo dhan waa soo aragnay hadda dhibkuna wali uu sii socdaa oo meelo badan ayaa hadda lafteed aan ka soo cabsanay marka waxaan leenahay dadku waxa ka soo baxaano kana sabraan insha Allah. Mustafa Hassan, Universal TV, Cape Town.